gabadhii waxay ogaatay in saaxiibkeedii isna uu si qarsoodi ah u baabay. waxay tuhuntay in hooyadeed ay dishay saaxiibkeed oo ay ku qarisay qasnad qabowda. sidaas darteed iyada oo iska indho tirtay digniinihii ayay furtay qasnad qabowda si ay u hubiso. markii ay aragtay in hilibka gudaha ku jiray aanu u ekayn hilib doofaar ayay markiiba su'aalo weydiisay hooyadeed, laakiin hooyadeed waxay ku adkaysatay inay hilib doofaar u isticmaashay samaynta burka. gabadhii waxay diiday inay rumaysato hadalka hooyadeed. waxay hooyadeed ka codsatay inay hal mar cunto bur hilib ah si ay shaki uga saarto gabadheeda. hooyadu keliya way ogolaatay. waxay ku dhawaaqday in haddii burka hilibku ay fiicnaato gabadheeda aysan mar dambe shaki ka gelin doonin arrintan mustaqbalka. waxay isku tiri hubaal way awoodi doontaa inay dhadhamiso hilibka ay burka laga sameeyey. kadib markii hooyadeed ay soo dhigtay burka deed ayaa mar kale u xasuusisay in runta ogaanshaheedu aysan wax wanaag ah u keenayn. hase yeeshee weli way qaadatay bur oo qaniinyo ayay ka qaadatay. waxay la yaabtay in dhadhanku uu gebi ahaanba ka duwanaa kii ay hore u cuni jirtay. waxay rumaysatay in hooyadeed ay khiyaanaynayso. markii ay gabadheedu su'aalo weydiisay hooyadu aad ayay u cadhootay. way qaydisay iyada oo u sheegaysa inay ka baxdo. waxay u digtay in haddii ay sii wado weydiinta ay jarayso xidhiidhkooda. gabadhii ma ay quusan inay daaha ka faydo sirta burka hilibka. waxay aragtay nin hadda uun soo iibsaday bur ay hooyadeed samaysay. waxay markiiba ku degdegtay oo ay ka xoogtay burkii ninka gacantiisa. kadib markii ay urisay waxay ogaatay in urku uu sax ahaa. markii la gaadhay wakhtigii cashada deed ayaa u diyaarisay gabal hilib lo'aad ah oo cusub. runtii si aan la xakamayn karin ayay u mantagtay. mar kale waxay hooyadeed weydiisay hilib noocee ah oo buuxinta burka loo isticmaalay. hooyadeed waxay tidhi waxaa lagu sameeyey hilib doofaar madow, laakiin tani gabadha ma ay qaldin. gabadhii waxay miiska cuntada saartay burkii ay ka xoogtay ninkii.